Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada walaalahena qiimiga badan oo janaalkeena Zack Multimedia. Runtii asxaab fara badan ayaa waxay iga soo yara weydiiyeen cilad ka haysata Adobe Premiere Pro dhanka iyo social mediaha, gaar ahaan dhanka iyo Telegramka iyo WhatsApp-kaba. Runtii ciladahaas markaan fiiriyo waa hal cilad oo keliya taasoo keeni karta shaashadda markaasi ay adeegsanayaan. Runtii muuqaalkan waxaan kuugu tusin doonaa sida aad ciladaasi aad uga bixin laheedeen iyo sidoo kale talo aad iyo aad u muhiimsan taasoon u muhiimsan qof walba markaasi doonayo in markaasi uu laptop soo iibsado. Marka aan idin tusiyo cilada waxay tahay ugu horreyn marka waxaan soo furanaynaa dhanka iyo Adobe Premiere Pro-ga. Markaan Adobe Premiere Pro aan sidaan usoo furano sidaa u jeedo marka projectigii aad ka yar shaqaynaysay markaad dhammayso kaliya waxaad leedahay in input iyo output meeshuu ka bilaawdo iyo meeshuu ku dhammaado ayaad soo yara xiraysaa. Haddii tani aad fahmi weyso kaliya markaan dhahno oo clear aan iska dhahno kaliya markaad projectiga aad ka shaqaynaysa aad dhammayso waxaad leedahay keyboardkaaga ayaa waxaad ka qabanaysaa Control A. Haddii Control A aad fahmi weyso kaliya left click-taaga ayaa sidan ugu soo jiidaysaa. Laakiin tani left click-ta waxaa laga yaabaa in waxyaabo badan ay kaaga soo tagto. Laakiin sidaas darteed waxaad leedahay Control A kadibna waxaad leedahay calaamadda question mark-ga ee keyboardkaaga taala ayaad click siinaysaa oo ama waa taabanaysaa. Haddii question mark-gaasi aad fahmi weyso oo keyboardkaaga uu carabi leeyahay kaliya xarafka the ayaad taabanaysaa. Markaad taabato sidaad u jeedo dhammaan wuxuu kuu sameynayaa input iyo output. Kaliya markaas waxaad leedahay Control M. Control M-kani wuxuu kaa saacidayaa in aad hesho meeshii aad ka sasixin lahayd exporting-kaaga. Marka ciladu waxay tahay waa midaan kaliya meeshan sida u jeedo wax scroll ah meeshan kama yara muuqdo. Sida u jeedo meeshii videoga CBR-ka iyo VBR-ka oo kale meeshaad ka dooran lahayd iyo dhammaan way kaa qarsan yihiin. Cilad marka waxay tahay walaalahan igu soo sawireen waa sida tan oo hadeertan meeshan ka muuqata. Marka sidaad u jeedaa marka dhammaan marka wixii scroll-ka aad sasaxan lahayd oo aad iyo aad ugu muhiimsan ayaa ka yara maqan. Run ahaantii marka screen-ka aad adeegsanayso ama shaashadda aad adeegsanayso haddii aad iyo aad u yar tahay kani kuma soo bixi doonto. Laakiin haddii screen-kaaga xoogaa yar uu yar weyn yahay kaliya waxaad samaysaa geesahani ayaad ka soo yar jiidaysaa. Mar allaale markaad geesahan ka soo jiido sidaad u jeedo waxaa kuu soo yara muuqanayo scroll-ka meeshaasi ku yara qorsan. Marka scroll-kan wuxuu kaa caawinayaa inaad shay kor aad kaga tagto inaad hoos aad kaga tagto. Marka aad iyo aad ayuuna u muhiimsan yahay. Scroll-ka sidiis badan waa muhiim. Hadeertaa marka sidaad u jeedo meeshan scroll-kii aad iyo aad ayuu kuugu soo baxayaa. Wixii markaasi aad ugaga baahneed ayaad kaga sii saxsaxanaysaa. Waayo haddii meeshani scroll-ka ay kaa qarsan tahay dhibka markaas ugu weyn ay ku haysto waxay tahay shaashadaada ayaa aad iyo aad u yar. Runtii shaashadaha hadeertaan la adeegsado waa 14 inchi iyo 15 inchi inta badan meeshaasi ayay u badan yihiin. Balse hadeertaan aniga aan kula hadlayo laptop-kayga waxaan si toos aan ugu xiriiriyaa dhalada mar walba gadaasheeda taala ayaan mar walbo ayaan ku xiriirsaa. Sababtoo tahay waxay yara siinaysaa muuqaalka markaasi aan rabo. Marka taasina waa qodob aad iyo aad u muhiimsan oo qof walba lagaga baahan yahay in uu aad iyo aad iskaga fiiriyo. Inta badan haddii laptop-kaaga screen-kiisa uu weyn yahay aad iyo aad ayuu kuu caawin doonaa. Marka scroll-ka sidaas sahlan ayaad u soo bixin kartaa inaad sheeyadan kor iyo hoos aad kaga jiido. Sidoo kale talada aan ku siinaa waxay tahay haddiiba aad mar aad rabto inaad soo iibsato laptop cusub ugu horreyn waan ka soo yara hadlay oo dhammaan muuqaal ayaan ugu soo yara hadlay oo markaad doonayso inaad laptop cusub aad soo yar iibsato intaan ayuu kaaga soo bixi doonaa waxyaabaha markaasi muhiimka aadan u baahan tahay. Marka muuqaal hore ayaan ka yara sameeyey qaybtan sare ayuu kaaga soo bixi doonaa. Sidoo kale talada aan ku siinaa waxay tahay haddii aad rabto inaad soo iibsato laptop cusub oo aadna sanadkan aad qorsheynayso ugu horreyn kaliya haddii aad aragto computer leh GPU laakiin screen resolution-kiisa uu aad iyo aad u yar yahay tani ciladan oo kale way ku qabsan doontaa. Laakiin inta badan waxaa muhiim ah inaad iska fiiriso screen resolution-ka aad soo qaadanayso ama laptop-ka aad ka soo gadanayso in uu yahay full HD waa muhiim. Haddiisan full HD uusan ahayn waxaa lagaaga baahan yahay inaad shaashad weyn aad ku xirato sida LG, Samsung, Nikora dhalooyinkaas oo kale haddaad awoodo budgetkaaga uu ku awoodo 32 inchi mid ah ama 24 inchi ah si toos ayaa markaas waxaad ugu xirinaysaa fiilada HDMI taasoo awoodi karta inay muuqaal xajmigeeda soo gudbiso full HD. Marka taasi waa muhiim inaad iska fiiriso
shaashadaada resolutionkeeda waa muhiim. Marka intee ayaad ka ogaan kartaa markaad soo iibsanayso? Kaliya marka waxaad samaynaysaa desktop-kaaga ayaad right click leedahay. Aniga haddeertaan waxaan adeegsanaya Windows 11. Marka waxaan leenahay show more options. Kadibna waxaan kasii xoolanaynaa display settings. Ugu horreyn marka sidaad u jeedo meeshan kale ayuu ii soo gudbinayaa. Marka ugu horeyso meesha aan ka rabo waxay tahay qaybtan display resolution. Aniga hadda dhalada iigu xiran ayaa waxay tahay full HD. Marka taasi ayaa keenayso in laptopkayga meesha ugu sareyso uu noqdo cabirkaani 1920 lagu dhuftay 1080. Marka meesha ugu sareyso waa in uu cabirkaaga inta ku ahaadaa. Haddii aad heli kartana laptop oo 4K ah screen resolutionkiisa aad iyo aad ayay u wanaagsan tahay. Sidoo kale scale-ka waa inaad iska fiirisaa. Aniga haddeertaan mar badan cashiro ayaan duubaa. Taasi ayaa marka waxay keenaysaa in aan ka dhigto 25% aan shaashadeeda aan soo dhaweysto. Haddii aad qof xoogaa yar indhaha aan wax ka arkayn aad tahayna waxaa lagugu talagalay cabirkan 150ka. Marka haddii marka ay kuu soo bixi weysay ciladan ay ku qabsato haddeertaan aan ka hadlayno kaliya waxaad ka dhigan kartaa 100. Laakiin aniga haddeertaan 25tanba enough ayay igu tahay. Marka 100ka mararka qaarkood ayaan adeegsan jiray oo muuqaalada aan duubi jiray ama aanba editing garan jiray. Marka waxaan filayaa asxaabta ciladan yara haysato in ay aad iyo aad u fahmeen cilada meesha ka yara haysato. Ma ahan cilada kaliya meesha ay ka qabatay in lagu tusiyo ee sababta keentayna waa inaad ogaataa. Marka waxaan rajayn doonaa muuqaalkan kooban inaad ka wada faa'iideen. Haddii aad videogan ka faa'iiday fadlan la garee lana wadaagna asxaabtaada muuqaalkan si ayagana ugu yara faa'iidaystaan. Haddii aad nagu yara cusub tahay nagu soo biir adigoo taabanaya calaamadda subscribe-ka kadibna furanaya gambaleelka si ay kuu soo yargaaraan muuqaal walbo aan soo gelino. Waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. Ugu dambeyntiin waxaan idin leeyahay sidaas iyo nabadgelyo. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh. Waa noo muuqaal kale. Guuleysta. Maca assalaama.